بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada dhamaan asxaabta meel waliba dunida aad ka joogtaan magacii waa maxamuud youtube channelkayga waa engineer maxamuud waa mar kale iyo muuqaal cusub insha Allah muuqaalkani waxaan ku qaadan doonaa casharkeena taxanaha kuna saabsan maadada technology fasalka afraad ee dugsiga sare waana su'aalaha iyo jawaabaha kuna saabsan maadada technology-ga ardada markaas imtixaanka wajahaysa sana dugsiyeedkan 2023-2024 runtii arday badan ayaa markaasi inagu xiran nagana dalbatay markaasi inaan usoo gudbino muuqaalada markaa la xiriira qaybahan su'aalaha iyo jawaabaha kuna saabsan maadada technology-ga fasalka afraad ee dugsiga sare daawada haddii uu muuqaalkan kusoo gaaray share garee gaarsii saaxiibadaasi ay kaga faa'iideystaan haddii uu muuqaalkan kusoo gaaray la garaysay dhiirigelin inoogu noqoto guuji badhanka subscribe gambaleelkana furo si aad u hesho muuqaalada halkan aan soo bandhigno insha Allah muuqaalkan waa muuqaalkii saddexaad aan kasoo duubayno maadada technology su'aalaha iyo jawaabaha fasalka afraad ee dugsiga sare waxaan ku qaadan doonaa su'aalaha markaasi 31 ayaan ka bilaabi doonaa ilaa 40 ayaan gaarsiin doonaa muuqaalada qaabka markaas aan u duubaynayna waxay ahaayeen hab markaasi 10 iskugu xiran insha Allah waxayna markaasi si guud gali doonaa su'aasha 31 ayaan markaasi si guud gali doonaa su'aasha 31 waxay u dhacaysaa what are the disadvantages waa maxay faa'iidada darada what are the disadvantages waa maxay faa'iidada darada of questionnaire questionnaire-ka waa barnaamij markaas loo isticmaalo su'aalaha oo markaas in lagu buubuuxiyo questionnaire-ka faa'iidada darada uu leeyahay waxaa kamid ah respondent may misunderstand questions jawaab celintiisu waxay noqon doontaa in markaas noqon kartaa su'aalaha in la fahmi waayo because maxaa yeelay design and ambiguous language sababtan waxay noqonaysaa nashqadeynta iyo luqad aan cadeyn markaasi inuu markaa la isticmaalo B respondent may ignore certain questions jawaab celinta ayaa waxay noqon kartaa inuu markaas diido su'aalaha qaar there's a risk of questionnaire fatigue if surveys are carried out too frequently waxaa jiri kara ayaa la leeyahay khataraad markaas questionnaire-ka ah qofka markaasi qaadayo xogtan inuu markaas uu ku daalo uusan si dhaqsi la markaas uu sameyn karin su'aasha 32 waxay u dhacaysaa sida tan what are the advantages waa maxay faa'iidada of document review document review ama documentiga markaasi waa maxay faa'iidada uu leeyahay waxaa leeyahay analyst can see himself qofka markaasi wax baaraya nafsadiisa ayaa markaas wuxuu arki karaa how Bible system operates sida warqada markaasi ay u shaqeynayso the analyst is able to review previous solutions qofka markaasi baaraha ah wuxuu markaas awood u leeyahay inuu dib u arko halka markaas hore iyo and recommendations that have been made on the system iyo talooyinka markaasi lagu sameeyay systemkani su'aasha 33 waxay u dhacaysaa idna sida tan what are the disadvantages of document review waa maxay documentiga markaasi faa'iido darro uu leeyahay it can be very time consuming exercise wuxuu markaas qaadan karaa waqti badan ayuu markaa qaadan karaa b it very costly method to use wuxuu noqon karaa markaasi mid isticmaalkiisa inuu noqdo hab isticmaalkiisa inuu markaa qiimo uu ku baxo su'aasha 34 list the following types waa noocyada markaa soo socda of requirement specification markaas looga baahan yahay in markaa la cadeeyo the following requirements waxyaabaha markaasi the requirement should include waxyaabaha loo baahan yahay markaasi waxaa kamid ah the following kuwan soo socda input inaan markaas wax dhigi karno output inaan wax la soo bixi karno control sidoo kale inaan ilaali karno data storage waa keydinta xogta processor requirement iyo habka markaas hanaanka processka aan marayno su'aasha 35 waxay u dhacaysaa sida tan what is the user interface waa maxay user interface maxaa la muxuu yahay user interface leenahay define waxaa lagu qeexaa how user communicated sida markaas isticmaalayaasha isku xiriiraan within computer system habka computerka and involves taasoo ku lug leh all the hardware and software screens software-ka iyo hardware-ka labadaba ayaa kamid ah shaashadaha
and means functions iyo shaqooyinka markaasi markaa la fulinaya performance and feature that affect two-way communication. sidoo kale gudashada markaasi waxyaabihii hore ayaa saameyn hab markaasi ku noqon karta isgaarsiinta ama xiriirka between taasoo u dhexeysa the user and the system isticmaalaha iyo systemka markaa su-aasha 36 let's take characteristics waa dabeecada of good user interface waa maxay good user interface-ka faa'iido uu leeyahay consistency layout hab dhaqsi badan inuu yahay user friendly mid markaasi isticmaalaha saaxiib leh inuu markaasi yahay build user interface which is simple easy to use in markaasi uu dhisaa isticmaalaha hab markaasi ugu fudud ee la isticmaalaya enhance user productivity sidoo kale waa inuu ahaada isticmaalaha mid markaasi wax soo saar leh make the user interface easy for users seek support or fix errors waa inuu ahaadaa qofka markaasi isdhexgalkaas sameynaya ama interface-ka for users to seek support to fix error inuu markaasi uu raadiyaa xal markaasi uu ku taageeraya khaladaadka markaasi uu ku hagaajin karo su-aasha 37 waxay u dhexeysaa what is the system design waa maxay system design ka leeyahay is the process defining waa hab markaasi lagu qeexaya architecture ayaa loo yaqaanaa components waa isku dhisida markaasi sawirada ah modules interface and data system waana hab markaasi lagu soo bandhigaya isdhexgalka to satisfy si loo qarxiyo specific requirements waxyaabaha gaarka loo baahan yahay of the users ee isticmaalayaasha markaasi adeegsanayaan su-aasha 38aad waxay u dhexeysaa sida tan list types of design noocyada designka waa maxay logical design waa mid markaasi macquul ah iyo physical design iyo markaasi mid oo muuqata ayaa loo yaqaanaa su-aasha 39aad what is difference between waa maxay farqiga u dhexeeya logical design and physical design waa maxay farqiga u dhexeeya labadaba logical design waxaa la naqshadeynta macquulka iyo midda muuqata loo physicalka loo yaqaano logical design ka leeyahay relates waxay la xiriirtaa to abstract representation qaab markaasi aan la arki karin of the input and output waa markaasi gelinta iyo bixida of data flow of the system xogta markaasi la marsiinayo systemka physical design kana relate waxay la xiriirtaa to actual input waa hab markaasi macquul ah and output process of the system iyo hab markaasi saaritaanka habka loo soo gelinayo habka loo saarayo markaa su-aasha 40aad what is the main goal waa maxay hadafka ugu weyn of system construction waa habka markaasi dhismaha the main goal of this phase habka ugu weyn wejigani is coding waa in markaasi qoraal la sameeyo of the proposed system iyadoo markaasi hab ujeed loo sameynayo by using iyadoo la isticmaalayo an appropriate computer language waa markaasi luqadda ugu habboon ee markaasi la isticmaalaya oo computerka uu fahmi karo insha Allah muuqaalkeenan caaw halka ayuu ku egyahay